magaalada Darfur oo kamid ah ismaamulka Wajeer ayaa waxaa soo food saartay biyo la'aan iyadoo saameyn weyn ay ku yeelatay dadka iyo dunyada biyo la'aantani ayaa mid soo noqnoqotay isla markaasina mas'uuliyiinta ay sidoo kale hay'adaha aysan waxba uga qabanin haddaba maraan socdaal sheekh ku gaaray magaalada Darfur ee ismaamulka Wajeer ayaa halkaas kula kulmay nabadoon Cabdisamad dalkan aan joogno waa dal ay dawlad ka jirto maamul county ka jira maamul federal system dawladda ka jira labadaba waxaan ka codsanaynaa magaalada buuq far badan oo ka jira oo oonka ay jira waxa soo dhan waxa kaliya ay daawada lagu gaaraya in ceelka hadda shaqeynayna service lagu sameeyo ceelka horena duumane la qodo in kasta oo gafani hore ay 5 sano hore dhamaaday maalintu soo galay intuu noo imaad uu dhahay haddaan qodayna ilaa saacadan aan waxba laga qaban haddana in kastoo xiniyaha la haysto midka hadda ku jira xiniyaha la haysto oo hadda maanta aan eeda faraha badan saarayno isa haysiga ka jiro Wajeer County ee annagana saameysay madaxdii baa xiniyaha isku dhigan muranka faraha badan murankaasna raaciidana dad uma aha waxyaalo fara badan oo government aan ka helin oo inta aan ka helin yaa sida ku dhumay Abdurrahman Bilow jiifkii hore ee magaalada Darfur waxaan oo ka warramaya xaaladda ka jirta ismaamulkani amaya inaad maanta soo booqataan aad baan ugu faraxsanahay waxa ugu daran oo raxdii ya intay baxday ya geedkan in la soo dhigay dhalada lagu soo saaray baad moodaa oo wixii waa jilaan biyihii aan haysanay dadka kuma filan problem waxa ka jira dhanka biyaha dadkii buuqoodii baa nakaray dadkii oonkii baa ka batay dad waxaad arkay bilcaan socota habeenimo oo garjamo jiiri dad aad arkay meel biyo loo maleyn intay aadeen biyihiina meesha ka soo waayay haddii adiga labadoo garjan aad haystid hataa kuma adiga calool xumaad u cabaynin marka waxaan maanta aan ka hadlayo maadaama ugaas Cabdiraxmaan Bilow Xasan weyninka kula hadlay ahaana chiefkii dhagaxlii asaasay chief Cabdiraxmaan Bilow Xasan codsigayga maanta waxaa weeye mid kasta oo maqlaya codsiga anaga beesha caalamka meel ay joogaba magaaladan waxaan rabaa biyo inay hesho magaaladan laba ceel bay qabtay labada ceel markay lahayd ceel ugu wanaagsanaa oo xoogaa biis way yar cuslaayeen oo xoolaha ayuu aad ugu fiicnaa ceelna biis way macaanayeen oo waxaa cabbi lahaa dadka marka dadkii iyo duunyadiiba hal ceela soo dhexmaray ceelkaa 6 sano uu dunsan yahay mid soo bixiyo faataxa qaato asaga jeebkiisa ka daro hal hele dadka mas'uulka laga yahay waxay u baahan yihiin in la daryeelo waqti xadirkan biyo la helo biyo la'aantani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli abaaro ay ka jiraan guud ahaanba gobolka iyadoo hay'adaha samafalka iyo sidoo kale mas'uuliyiintii aysan soo gaarsiin wax gargaar ah sida ay sheegeen xoolo dhaqatada iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaaladani Xasan Kaafi Badacad 24 TV ismaamulka Wajeer